markaasuu wuxuu leeyahay hadal cajiib ah uu leeyahay nolosheenna markaan ka hadalno risaalada aad gudbinaysid message-ka aad dadka siinaysid markaad hadlaysid ama aad wax u sheegaysid ama aad kulantaan oo isa salaantaan wuxuu leeyahay luqatul jasad jirkaaga luuqadiisa waa waxay dhahaan body language soma ama body gestures kamay dhahan waxaan jirka qofka ka muuqda wuxuu qaataa 55% boqolkiiba 55 waa asaga qofku suu deganaanta ka muuqata sida uu u eg yahay sida macnaha akhlaaq fiicnaanta ka muuqata boqolkiiba 50 dadkay ku soo jiidaysaa markaas wuxuu leeyahay nabratu sawt hadalkaaga suu accent suu u dhacay hadalkaaga luqadda u dhawaaqayso waxay qaadataa boqolkiiba 38 inaad qaylinaysid inaad tartiib qofka ula hadlaysid macnaha hadalkaaga suu u dhacay language-kaaga wuxuu qaataa uu leeyahay boqolkiiba 38 kelimadaha aad ku hadlaysid macnahooda waxay qaadataa boqolkiiba 6 fiir darasada ay ku sameeyaan boqolkiiba 6 kelimadaha dadku marka ugu horeysa ma qiimeeyaan hadalka dhahaysa inta badan wuxuu fiirinayaa qofka in deganaantiisa iyo quruxdiisa quruxda kama wada muuqaalka koro oo inagu physicalka u naqaano laakiin dhaqanka fiican oo ka muuqda waa wax ajiyo marka inaadan ka badbadino waxaadan aad iska dhigdin bas fashilaysaa bal dadku waxay ku malin inaad fududahay haddaad boodido istaagto qofka soo dhaweey oo ka badbadisid marka sida ilaahay kugu abuuray oo ixtiraam ku jiro dadka ku soo dhaweey midda الخامس عشر شنية تبناد والقدرة على إجراء اتصال بالعينين لبدا إنضاد وحيابها أنت بدنا وحاولي بقى أنكار لأن أرضيدا أو كلا والدك أو كلا حاسك يمينك أو كلا ما كان كهل لأنه إن القفك أي كونتاكت إن لسه ميسي أو قفك إنه هنا عايز أركان وحال إلى هذا وحال كتوسيسا قفك إنه النفس سكوك السونية هاي صاحبنا أكلية وصيدها كوا بني آدم كوحكا قرر markaasaa weliba waxay leeyihiin hoos fiirintuna waxay ku tusisaa qofku inuu niyad jabsan yahay ama uu baqayo waatan xataa inaga marka job description-ka laga hadlayo interview-ga Soomaar waxay noo sheegaan waa bini aadamka cilmigu ay kala faa'iideystaan markaasay weliba waxay dhahaan wax la mid ah 1 second oo kale adoon libiqsanin qofka inaad fiirisid waa calaamad ku tusaysa jacayl iyo saaxiibtinimo cunugaaga ama xaaskaaga inaad 1 second qofka indhaha aad fiirin kartid adoon libiqsanin wax fiican wuxuu qofka inaad niyad u haysid iyo muujinaya waa waxa la yiraahdo fiirinta wax weyn bay keentaa waa culimadu ay ka hadlaan midda 16 waxa weeye xaawil an tuqallil almazah waxaad ku talagashaa inaad yareyso kaftan weligaa kaftan badan ha kaftan yar oo kale oo dadka ka farxinaya oo niyada u dhisaya oo aan qofka dhaawacaynin النبي صلى الله عليه وسلم dadku la kaftami jiray laakiin qalbigooda ma dhaawici jiray kaftanku la kaftami jiray waxa kamid ah maamadii u timid qof duq oo baa u timid markaas waxa xigtay rasuulka ilaahay oo inaan jannada galo ilaahay ii weydiin markaas wuxuu nabigu yiri hadee qof weyn oo cajuuza ah jannada ma gasho way naxday markaas nabigu wuxuu ku yiri waxaan ka wadaa adoo dhalinyaro ah oo gabar oo qurux badan baa jannada galaysa way farxay oo qasashay wiilkii yara oo shimirku ka dhintay nabigu wuxuu jiray يا عمير ماذا فعل النقير شمركي يرى مكوسمي مركاسو عنقو وقفليا ومرغونيا شمركي وحسوقنيا وكفتا يرى انه وحانا انا دقن كانه قفك الا عايه او هو كفتا ما يا اخواني وحال ليهي لوغي الي هبل مذوبه صلق بحر كسان عيالك دوكسيغا ما انت وحو ليهي فات بوي بيج بوي واستغاليا ما انت وحو كل هذا معنا كفتما كفتا ما كفتن يا قفك هيا والعاده قفك عيدد قفك شخصيته wax ka sheegtid inaa kaftan baan u naqaana bariyaan waxa saaxiib عندي في wiil yar oo Pakistan ah marka gabar New York ku dhalatay waligeed aan Pakistan tagin baa lagu daray dawladda kale gayaa lagu daray waa gabar Mareykan camal markaasuu asna waa nin wada fiican buu hayaduna waa gabar wada fiican laakiin waa nin dhaqankii wadankiisu haysta waligeed wadamadan u saaray maalin dambe wuxuu yiri Cabdirtaan xaaski ilaa xal ilaa maanta way ooyeysa way ila dagaashay way ooyeysa maxaa dhacay xalay waxay igu tiri wiiri saan u ekahay isheeg ma qurxoonahay saad ii aragtaa saad ii malaysa markaas ay ma sha Allah waa qurxoon tahay waxa irbi short anfaal waa gaaban tahay waa daciilan tahay way qaracantay ilaa maalintii dambe way ooyeysay wanka anu wixii hadda waan caadi waan la kaftamay laakiin way tahay maxaan dhibay uleeyahay qofku leeyahay لكن وعيسى ما هذا قف شرط أنفاس ومكان وعي هذا وين
wadamada kale waa iska caadi wadamada qaarkood marka inaad qofka feelings inaad dhaawin kelimadaha aad tuuraysid gabadha reerkoodiiba caayaya ninka ayadiiba wax ka sheegaya qabiilkeedii wax ka sheegaya dhaqankeedii wax ka sheegaya raashinkeedii wax ka sheegaya ay karisay hadhowna wuxuu leeyahay kaftanaayo ma aha kaftanku waa maxay qofka wax niyada u dhisay qodobka ugu dambeeya oo aan kusoo khatimayo waxaa weeye xaafid calaa mawaaciidika maca annaasi wa ixtiraamiha waxaad ku tala gashaa qofka markaad la ballantid inaad ballanta ilaalisid ballanta ilaali mar walba waxbaad ka ballan qaaday u samee ama ha noqoto xaas ama ha noqoto caruur ama ha noqoto waalid ama ha noqoto saaxiib ballanta ku dadaal qofka ballantala dadku way jeclaadaan waxaad kula ballantay dadka u oofi waxyaabaha cajiibka ah oo aan aragnay waxaa ka mid ah muslimiinta inta badan ballanta kuma dadaalaan sida inagu iska dhaadhicino waa dhaqankeena laakiin islaamka ma aha ilaa muslimiinta ay dhahaan gaalada ballanta way ku fiican yihin muslimka kuma fiicna waa dhaqan fiican ma aha marka haddaad wax ballan qaadid inaad ballanta oofisid ikhwaani waxaan sheegnay 15 leeb oo qofka qalbigiisa lagu hanan karo marka haddaan idiin soo dulmaro si qofku uu xataa u xifdiyo waxay ahayd salaamta ibtisaamka ama dhoolla caddaynta hadiyadda qofka wax loo hadiyeeyo in ixsaan loo sameeyo oo qofku hadduu dembi kaa galana la cafiyo ayaa ka mid ahayd waxaa 5 ay ahayd maalkaaga inaad siisid kiisana aada u daysid 6 waxay ahayd qofka inaad hadduu ku dulmiyo iska cafidid 7 waxay ahayd inaad malaha u fiicnaysid qofka bini aadamka ah haddaad khalad gashin aad ka cududaaratid 8 waxay ahayd mudaaraadka waxaan dhahaynay mudaaraadka qofka inaad soo dhawaysid oo niyada u dhigtid 9 waxay ahayd qofka inaad u badisid kelimada nacam wax kastoo dhahaba inaad muujisid inaad ka aqbalaysid oo aad la dhacsan tahay hadalkiisa 10 waxay ahayd qofka ra'yigiisa iyo feelingkiisa dareenkiisa inaad tixgelisid 11 waxay ahayd qofka inaad taxaddi iyo challenge la samaynin 12 waxaan yiri qofka inaad si fiican u dhageysatid u dhagraaricisid hadalkana aadan ka kala goynin 13 muuqaalkaaga inuu dadka soo jiito oo qurxoonta at least inaad nadiif tahay 14 inaadan adigu sameyn waxyaabo aad iska sameynayso show off oo dadka asleeda ku soo jiido inaadan sameynin oo iska ilaalisid midda 15 waxaan yiri inaad dadka aad eye contact indhahaaga inaad dadka u furi kartid oo fiirin kartid midda 16 inaad kaftanka iska yareysid wax dhaawacaya qofkana aad ku kaftamin iyo ballanta in la ilaaliyo haddaad 17 kaas qodob xataa dhowr kamid ah haddaad qaadatid oo ku camal fashid muslimiinta oo dhan way ku jeclaanayaan ehelkaagu wuu ku jeclaanayaa caruurtaadu way ku jeclaanayaan macallimiintaada iyo ardadaada way ku jeclaanayaan mujtamacuna way ku jeclaanayaan wallahu yaqul xaqa wa yahdi sabiil